Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Kusoo dhawaada muuqaal cusub. Fadlan haddii tahay markii kugu horeysay waxaan ku leeyahay soo dhawow. Muuqaalkana like inoo saar, comment inaga dhiib, channelkana subscribe inoo saar. Aad iyo aad umahadsan tahay. Haddii aan muuqaalkeena maanta guda galo, cashirkiisii ka horeeyay macnaha muuqaalkii ka horeeyay waxaan ku sharaxnay grammar foundation asaaskiisa. Anagoo ku sharaxnay waxyaabaha kamid ah haddii aan dib u soo xasuusana subjective verb tense aan iraade alphabeticalka capital letter small letter qaabka loo isticmaalo laakiin muuqaalkeena maanta wuu ka duwan doonaa muuqaalkii hore. Waxaan hore usii wadan doonaa cashirkeena labaad wuxuu noqon doonaa tenses oo ah waxyaabaha anaga aan sameyno mise aan sameyno maalin kasta mise aan sameynayno mise aan sameyni doono. macnaha tenses waxa waaye waxyaabaha shayaalka maalin walba aan sameyno iyadoo maanta aad sameynaysid ama shalay aad sameysay ama aad sameyn doonto. Tusaale waxyaabaha horta tenses wuxuu u kala baxaa qaabo badan. Midka koowaad haddii aan gudaha ka galno waa simple tense. Simple present simple tense. Haddii aan idin faahfaahiyo definition waxa waaye faahfaahin ama qeexid. We use it for habit. macnaha waxaan u isticmaalnaa habit, macnaha waxyaabaha maalin walba aan sameyno. Fact waxyaabaha jiro ama caqiidooyinka jiro and things shayaalka that we do every day oo aan sameyno maalin walba saacad walba. Okay, qaabkee marka loo dhisaa formularkee loo dhisaa. Formular lagu dhisaa waxay tahay markii simple present tense aan ka wada hadlayno waxaa loo dhisaa formular. waxaa la yiraahdaa qaabka uu u dhismo. Kow wuxuu ka bilaabanaa subject saa muuqaalkii hore ugu soo sheegnay waxaa waaye waxyaabaha subjects waxaa waaye ficil sameeyaha oo lagu daray verb waxaa waaye ficilka. Okay, verbka marka wuxuu qaadanaa s ama es. erey qaarkood s bisa qaataan, ereyana es qaataan. With he, she taasoo lagu daraayo he asaga, she iyada, it isaga. macnaha it waxa waaye with he, she, it was. macnaha waxaa loo isticmaalaa in lagu tusaale qaato shalay ama maanta. So it waxaa loo isticmaalaa waxyaabaha aan nooleen. Okay, sa ina fahanteen rajeyna. Okay, example tusaale marka hal tusaale oo aad wanaagsan idin siina ama 3 tusaale ama 4 tusaale. Okay, tusaalaha koowaad I aniga. Okay, I wuxuu u taagan yahay markaas subject. I aniga. Play waxaan ciyaarayaa football every day. Okay, I play aniga waxaan ciyaaraa football every day. So present macnaheedu waxaa waaye markaas aad joogno maalin walba waxa aad sameyso. waxaan leeyahay markaas present oo mar walba aad sameyso. macnaha waxa mar walba aad sameyso waa waxa sameynaysa maahan. So wax maalin walba aad sameyso. I play aniga waxaan ciyaaraa maahan waxaan ciyaarayaa maahan. waxaan ciyaaraa. I play waxaan ciyaaraa football banooni every day maalin walba. aniga waxaan ciyaaraa banooni every day. waa wax jira macnaha wax kuu qoran waa. Okay, she plays. she iyada plays waxay ciyaartaa football banooni on Sunday. Axad. macnaha she plays waxay ciyaartaa football banooni on Sunday. meeshan I aan la isticmaalay. I play s laguma darin laakiin meeshan s ayaa raacday. So means subject verb or he or she. markii he or she aad isticmaalaysid or it aad isticmaalaysid oo ay ka hormarayso ficilka ay ka hormarayso. haddii he aad isticmaalaysid or she aad isticmaalaysid or it aad isticmaalaysid waa in verbka macnaha ficilka sameysmaya markaasi uu s raacaa ama es raacaa. ina fahanteen rajeyna. aan ku celiyay meeshaas. labadan tusaale waxay ku kala duwan yihiin. tusaalaha koowaad ana si fiican idinkugu faahfaahiyo. meeshan waxaa idin ahaanay subject plus verb. subject oo ah qofka ficilka sameynaya iyo verb ficilka la sameynaya. haddii markaasi aad isticmaalaysid ficilkaas subjectiga hadduu he or she or it ay jumlada ku bilaabanayso ficilka markaasi oo verbka ah waxaa ku daraysaa s ama es. Okay, s waxaa raacaya markaas kuwa qaar, esna kuwa qaar ay qaadanayaan. Okay, dib aan ka ogaa doonaa s es maxaa loo isticmaala, qaabkee loo heli karaa ama qaabkee ku ogaan karaa inuu es yahay aan u isticmaali doono verbkan
ama aan s u isticmaali doono kaligeed. Okay, so meeshaan waxaan rajaynayaa I hadday ka bilaabato aniga plays ma dhihi karna marka I plays football ma dhihi kartid I play adaysaa sababtoo ah anaga formularka isticmaalayno waa in saddexdaas kamida ay ku jiraan. Okay, she plays, so she meeshaan maxaa ku jiro waa ta marka inta ku jirto jumladan she plays football esta marka waa soo raacay qasab. Okay, they don't play football in the morning. They iyaga so plays ma isticmaali karna meeshaan because inta formularka maxaa noogu jiro they nooguma dhex jiro. Okay, so they don't play football iyaga ma ciyaaraan banooni in the morning subaxdii. So they don't play football in the morning subaxii banooni ma ciyaaraan iyaga. Okay, do you play football? Tan afraad, do you play football? So anaga do you ade it tan oo bilaaban lahaa plays ana raaci lahayd. So meeshaan waxaa waaye do you play football? waa su'aal marka banooni ma ciyaartaa? Do you play football? qof baa su'aal ku weydiiyey warniyo banooni ma ciyaartaa? So do you play football? Okay, present tense kan haddii marka aan tusaale yar oo su'aalo ah aan idinka siiyo waayo ani badanaa waxaan jeclahay cashir walba aan qaadano ama qayb walba aan galno waxaan aad u jeclahay in aan exercise idin siiyo. Okay, exercise kan marka muxuu ku saabsan yahay fill the blank space buuxi meelaha bannaan. Okay, maxaan ku buuxinay marka intaa ku buuxinay xarfahan ku buuxinay sidee marka xarfahan waxa ugu buuxinay anaga meeshaan waxaan ku soo qaadanay wax la yiraahdo formular oo subject verb iyo lagu daray es anaga oo isticmaalan he she it. Okay, tusaale marka halkaan idinkaga jawaaba number 1 idinkaga jawaaba kadib number 2 iyo 3 iyo 4 idinkaga soo jawaaba qaybta commentiga ay soo qoraysaan. Okay, number 1 marka he dash meeshaan waa banaanta waa inaan buuxisaa it alusi rice every day isaga wuxuu cunaa aan iraahday bariis maalin walba. Okay, ina fahantina rajayna isaga wuxuu cunaa bariis maalin. So it kaligeed meeshaan ma galaysa marka sababtoo ah anaga maxay sameynay meeshaan maxaan kusoo bandhignay formularka isticmaalayna waa in uu he she it ay isticmaalaan s ina raacdo waa inay s raacdo. So inta s aan raacinayna so he eats rice every day wuxuu cunaa isaga it ama meeshaan raacayso rice every day maalin walba wuxuu cunaa bariis. So mid labaad waxaa waa they dash go to school by bus iyaga waxay aadaan iskoolka ayagoo raacaya baabuur. She dash not watch. Okay, so ina tan fahantina rajaynaa she haddii meeshaan aan isticmaalno meeshaan waxaa waaye labada mid aan isticmaalaya. So mid aad isticmaasho waa inay ama es raacda ama s raacda. Okay, so meeshaan idina waxba ka banaan intana waxba ka banaan laakiin meeshaan laba xaraf laga rabaa marka ina fahantina rajaynaa because inta maxaa ku jiro calaamad su'aal kan hadaa maxaa isticmaalay meeshaan calaamad su'aal noogu jiro. So su'aashaas ina fahantina rajaynaa meeshaan waxay gali lahaa idinka idinka rabaa intana waxay gali lahaa idinka rabaa idinkoo markaas ilaalinaya caqiidada anaga isticmaalno oo ah subject verb ses lidoo la isticmaalay haddii ay ka bilaabato jumlada he she and it. Okay, so inaan fahanteen ayaan rajaynayaa. Okay, haddaan cashirkan labaad number 2 aan galno present continuous tense. Present continuous tense waxaa loo isticmaalaa we use it for actions happening now macnaha waxaan u isticmaalnaa ficilka hadda dhacaya. So anaa ficil hadda sameynaysaa gacanta ana tusaale hadda waxaan hadda sameynayaa muuqaalkan hadda aan duubooyo waxaan sameynayaa cashir ayaan sharaxooyaa. So hadda waxaa waaye present continuous tense aa la yiraahdaa. Okay, formula leedahay marka iyadana formula macnaha waxaa waaye qaab anaga aan raacno ay leedahay. Okay, qaabka leedahay waxaa waaye subject mar walba jumlada waxay ka bilaabataa subject waxaa lagu darayaa am is are subject-ka waxaa lagu darayaa I am is are then waxaa raacay verbkaas oo la raacin doono ing macnaha waxaa waaye wuxuu cadeynayaa wax hadda dhacaya ficil hadda dhacaya waa inuu ing raacsanaado hadduusan raacsanin ficil hadda dhacaya ma ahan. marka si lacana lagu ogaado ficilkaas inuu yahay ficil hadda dhacayo waa in ing ficilka uu raacsanaado verbka waa inuu raacsanaado. Okay, example marka example muuqaalkan u dheeraada ma rabo
So example waxaa waaye I am playing football now. I am aniga waxaan ciyaarayaa banooni hadeertan. Waxaan ciyaarayaa banooni hadeertan. So I am playing football now. So I am play ma dhihi kartid because I waxaa u isticmaala I am xilliga aad taaganahay anaga waxaa waaye meesha maxaa ku qoran ereyga macnaha jumladda maxaa u dambeeyo now ayaa u dambeyso. So waa in aan playing ka dhignaa ing waa inaan raacinaa saa inta ka aragtaanba. Okay, she is reading a book. Iyada waxay akhrisanaysaa book. Iyada waxay akhrinaysaa book. Waa noqon kartaa laakiin she iyada waxay akhrisaa book haddii aad isticmaalayna tantii ka horreysay oo present tense daa isticmaalayna waxay noqonaysaa she reads s bisanace tan waa baxee intaan waa ka baxee isla raacayso. So tan hadda ku jirno anaga waxaa joognaa marka she is reading a book. So she is reading a book. Waxay akhrisanaysaa iyada book. They are not watching a TV or television. Macnaha TV television leewaay. So they are not watching television. Ayaga ma daawanayaan TV isla hadirtaan. Okay, are you listening? Mi dhegeysanaysaa? So tusaale su-aasha hadda aan ku dhahoyo qaybtan jumladan hadda akhrino idinkan ku socotaa. Are you listening? Ma dhegeysanaysaa? Okay, mi dhegeysanaysaa aniga? So su'aal waay. Okay, so exercise marka haddii intaas aad soo fahantay intan waxaa ku yaala exercise. Mar walba exercise markaan idin dhiibo hal su-aasha ugu horeysa idinkaga jawaabaa inta kale idinka kasoo jawaabaya. Okay, waxaa la yidhi complete with a correct form. Ku dhammaystir qaabka saxda ah ee aniga idin baray. Okay, he dash in the back. Okay, he maxaa meeshaan gali karo waa in aad isticmaashaa mid ka mid ah am is are kadibna aad ku dartaa ficil. Soo ficilkii waa haysanaa marka ficilka maxaa looga baahan yahay inuu raacsanaado ing inaa fahanteen aan rajeynaa. ficilka ing waa inuu la socdaa. Okay, he ani waxaa isticmaalaa is. I think inaa fahanteen meeshaas aan rajeynaa. So is ani da isticmaalaa okay, waxaa meeshaan he is. Okay, run a meeshaan ku jiro. So ani waxaan leeyahay running. He is running. Isaga wuu ordayaa. Muxuu ordayaa? Macnaha tusaale hadduu banooni ciyaarayo iyo hadduu wax sameynaya. So aniga waxaan dhahay markaas he is running. So ista inta ka kena marka ista intay ku jirtaa waa inaad jumladda fahmi kartaa. He is or is waxaa loo isticmaalaa hal shay markuu yahay uusan ahayn wax badan. Aarna waxaa loo isticmaalaa waxyaabo badan markaa isticmaalaysid. Inaa fahanteen ayaa rajeynayaa. Tusaale dad badan hadday yihiin aaraa isticmaalay. Hadduu hal qof yahay isaa isticmaala. I hadday tahay markuu jumlada ay ka bilaabanaysa hadday ka bilaabanayso jumladda oo dhash lagu siiyo am aa raacine. I think inaa fahanteen ayaa rajeynayaa meeshaasna. So muuqaalkan halkaas ayaan kusoo xirayaa. Waxaan rabaa su-aalahaasi qaybta koowaad iyo qaybta labaad inaad iga soo jawaabtaan oo aad qaybta commentiga iga soo jawaabtaan. Okay, haddii aan intaan muuqaalka soo xirin we dash not slash play football. Iyaga meeshaan waxaa ku jiro waxaa laga rabaa iyaga meeshaan waa we iyaga waa dad badan. So wixii laga raba adiga ayaga iga soo jawaabaysaa not play football. Not iyo play labadaba waa inaad mid ka mid ah isticmaashaa or inaad isticmaashaa adiga su-aashaad jawaabteeda saxda adigan kaa rabaa. meeshaan waxaa ka maqan intan waxaa ka maqan. So she dash cook waxay karinaysaa ama karinoyaa dinner waxaa la yihahdaa casho. I think inaa fahanteen arjena. So look fiiri the dog eyga meeshaas waa fahmi kartiin inta waxaa waaye ficil waaye kana waa ficil. So he is running in the back now. Isaga wuxuu ku dhex ordayaa back waxaa la yihahdaa beerta. Intaan muuqaalkiisa waxay kulmeyno waxaynan rajeynayaa inaad muuqaalkan fahanteen cashirkaana fahanteen. muuqaalkiisa intaan kulmeyno waxaa idin leeyahay sidaas nabadgelyo. channelka subscribe inoo saar. Soo dhow waad mahadsantahay.